والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa la yaab leh isweydiin mudan ruushka muxuu ku arkay ingiriiska arintan aan isdul taagaynaa iyo badda ingiriiska meel aanan sa uga fogeyn oo ingiriiska ba arkaan ayaa gantaal u tuuraya yani ingiriiska wala tagay macnaha yani arintaasi dhowr ma dhacday maxaa ruushka uga baxay ingiriiska isdul taagi doonaa dhinaca kale boqol ay marayaan ciidamada Mareykanka ee dhaawaca ah 96 kamid ah boqolkiibana shaqadii ku soo laabteen arintan waa isoo taageynaa ee dhaawacyada Mareykanka Abbas Araghchi hadalkii maanta uu ku hadlay ee ahaa in uunan arkin hogaamiyaha Iran oo cilka maraya bal aan isdul taagna asagana sidaas oo kale ma dhintay ma nool yahay sidee xaaladda tahay waxaan kaloo ka hadli doonaa dhowr qodobo laakiin aan ku bilowno arintan Hamas waxay dooratay Khalil al-Hayya oo ah hadda hogaamiyaha guud ee Hamas dabcan waxaa laga dilay Ismaaciil Haniya oo booska hadda maanta asagoo ku fariisay oo ku fadhiyay waxaa sidaas oo kale laga dilay Saataxana Yaxya Sinwar iyo hogaamiyaashii ugu badnaa dabcan Hamas waa laga dilay qofka ugu cadcad ee hadda la fiiqay farta lagu fiiqay soo ahaa asagii ayaa noqday laakiin wuxuu ku soo aaday xilli aad u adag marka la fiiriyo Hamas inta ay jirtay dhammaan guud ahaan xilli Gaza inta ugu badan ay haysato Israa'iil koo xilli hogaankii asaga yani xilliyadiisa ahaa wixii ka horeeyay wixii yani adiga xilli hogaankii badankiisa ay Israa'iil leysay qaar yarna ay ku jiraan xabsi xilli Gaza ay cunaqabateen tii ugu daran ay saaran tahay xilli laga faramaroojiyay Hamas ama ku socota hadeertaan in laga faramaroojiyay boqolkiiba boqol ayagana iska dhiibeene Gaza iyo dawladeeda adiga xaaladii ugu adkayd marka waxa uu hambaliyay waa hogaamiyaha Quds Force ay dhahaan Ismaaciil Qani oo in badan shakil la geliyay ninkaasi waa jaajuus kada oo Iran yani ciidamadooda kamidka ah bal sarkaalka ugu sareeya asaga uu soo dhaweeyay yani wuxuu yiri hade waan ku hambaliyay kada marka hadal ayaa waxa laga keenay ma laga yaabaa Ismaaciil Qani hada qofka uu hambaliyay badan waa la dilaayay asagana xaaladda inay ku soo socoto oo kale sidaas oo kale yani darad waa tay sigteen qadar ayagoo jooga daan wixii ay geysatay ee dhibaato ah ee duqeyn ah ay u geysatay Kuwait ilaan Kuwait waxaa laga burburiyay goobo shidaal goobo naftada ama shidaal ay sheegay korontadan ula jeeda ayaa laga burburiyay marka waxay leedahay waxaan si adag u diidaynaa Iran cadawtooyada nagu soo laabatay in lagu sameeyay duqeyntan aan joogsanayn ee soo laabanaysa almuhim nacamha Iran way aragsatay Kuwait sababtan waxay tahay Kuwait ciidamada Mareykanka jooga marka adiga sidee kula tahay Kuwait ciidamada Mareykanka ma iska ciirin kartaa oo iga bax ma dhihi kartaa si duqeyntan looga joojiyo dhinaca kale hadayna dhihi karin maxay ku xalin kartaa oo ciidamada Mareykanka jooga sababtooda Iran u garaacaysa macnaha dawladahan la garaacayo dhan macnaha maxaa xal u ah kula tahay sidoo aragtaa maxaa yeelay intaas waxa la soo jeediyay xataa Iran ay tiri ha ka baxan Mareykanka meel uma socdo Kuwait kuma dhacdo dhinaca kale duqeyntii kama joogsanayso oo Iran ay duqeynaysay bal hadeertaan waxa laga baqayaa in magaalooyin Kuwait kamid ah ay la gooba ay Iran gubtay yani sida hadda ay ku socoto weeyaan haday ku socoto dhinaca kale waxa Israa'iil ay ka hadlaysaa in eliboorka Ben Gurion oo ah eliboorka ugu weyn Israa'iil ay leedahay qaab farsamaysan adiga loo suray difaaci adag waa eliboorka madaniga ka hadlaynaa difaaciyo oo ay ku tilmaameen sawaariikhda iyo droneska soo dhici karaya ama Iran ay soo tuuri karto in had ugu yaraan ka heesto laakiin loo baahan yahay sida ay sheegaysa macnaha warbixinta in diyaaradaha Mareykanka ee shidaalka iyo kuwooda xamuulka yani hubka keenay in laga dhaqaajiyo si aynan Iran marsi ugu noqon saas oo kale dhinaca kale Mujtaba Khamenei ma nool yahay waa su'aal halka xataa journalkaasi su'aalo ka dhigay macnaha ma nool yahay ama waa dhintay maxaa la shakiyo badan ayaa jira oo ku saabsan inuu nool yahay hadal dheer ayuu maanta waxa uu soo saaray wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Abbas Araghchi wuxuu ku sheegay in ay jiraan jawaasiis sarsare oo meelaha ugu sareysana ku dhex jira wuxuu ku tilmaamay dilka la dilay Khamenei inuunan iska imaanin in ay jirtay soo dhaxgalay hogaanka sare taasoo sahashay dilka inuu dhaco in la ogaado meesha uu joogo kadibna dilka uu dhaco
وحوليه مرك أنجا حلقي ديلك ودعي دخل ذكر ماشي وان جوني لكن هذا ما كبد بعدنا ماشي معنا جوجين مركي وحيد عين وحولي ركب أنا لبد بعدي وماشي أنا لجوجي ما أيها يي من خانه وحوليه مرك هو جاميها مرك هذا إلا هذا اسمه إسرائيل محايا لي شكي أياجرة يا الآمنة يا عليما إيراني رسمي هو إيران أي كذا دعسن تهاي سياسات مش جاسوس وش خير مريكان كذا المهم هذا الكاسي إن أرنت وحي كان تهي هو جامعة نرت منوليه ما دام إن نسأركن شك يا جيران سي إنه هو أو أي كل شك سيهين حتى قامض إن لقاته مرة خارج وعدته يجي هذا الله إنه كوه الله مناسب ما تهي سيقول تهي ما أحيد لقد عوعي إلا إذا قالك إيران مركو بلودي dagaalka Iran marka uu bilowday boqol ciidan kaliya shalato ma ahana daraad duqeyntii ka dhacday Urdun meeqa lagu sheegay dozens yani waa tobaneeyo ayaa lagu sheegay in ay dhaawacmeen Mareykanka afar uu sheegay asaga ahaan laakiin New York Times iyo Jerusalem Post waxay soo gudbiyeen ay dhaheen Mareykanka waa beentiisa way qariyeen tobaneeyo ayaa dhaawacahay daraad marka asalka yani waa la yaqaanaa dagaalada markay dhacaan xaaladahan oo kale lama sheego waxa iga dhintay waxa macaan iga dhaawacmay inta badan yani dawladaha ma dhahaan laakiin haddana boqol ayaa sidoo Iran dagaalkeeda u bilowday naga dhaawacantay arinta adiga say kula tahay mid ka mid ah falanqeeyaashu wuxuu yiri I am not buying that iga ma gadmaysa arintaasi maxaa yeelay kaliya qadar saligii ku yaalay CNN waxa ay soo warisay markay tagtay meesha waxay tiri kumanaan ciidamo ah oo meeshan joogay duqeynta dhacday kumanaan oo joogay duqeynta dhacday waliba si waxay u dhacday tiri yani ayagoonan maxaan ku dhahay gali karin meelihii ay gabaadka ahay wixii lamidka almuhim xaaladda meeshaas ay maraysaa ugu dambeyn ruushka iyo maxaa kala haysta ingiriiska waxaa jira dabcan wadamo badan oo Yurub ah Jarmalaa jira Faransiisaa jira isheegay Polandaa jira oo u dhowba yani ruushka tusaale ahaan yani laakiin ruushka inuu intaa oo dhan wadan oo ka soo taga ingiriiska imaanaya tababaro ku sameynaya gantaalo ka ridaya marka qaarkiisa jaasuus oo adiga Cameroon uu soo galiyay oo malaaye kala duwan dolfinada iyo ayaa la qabanaya mar yani Cameroon iska socota iska sabeynaysa soo istaagay hadii la fiiriyo la furo ingiriiska ay furaan ruushka ka socota macna warar waxa jira inuu ruushka iska aragsada ingiriiska maxaa waxa lagu tilmaamaa sababta ay arinta u tahay horta arinta qisada say u dhacday waxa markab weyn oo ciidan meel 40 mayl u jirta badda ingiriiska ayuu soo istaagay kadib waxa area-daasi meel aanan ka fogeen joogo ka arkay ilaalada doomaha ilaaliye badda ingiriiska cod dheer waxay ku dhaheen adiga cod dheer afan yaana dhihin cod dheer kuma inaan dhihine ayaga korkaas ay ka joogaan marka way u jeedaan way fiirsanayaan sida qisada u qoranta weeyaan kadib kii ruushka hadlay waxay dhaheen dhageysta waxaan doonaynaa tababaro iyo maxaan ku dhahay inaan qaadano meeshan oo aan gantaalo tuurno ee fadlan ka fogaada yani dadkii wadankooda nimankaas qisadaas ay qoran tahay marka dhowr bambooyin ay meesha tuureen gantaalay tuureen qoladan ingiriiska markay daawanaysaa halkaasi taagan tahay ilaa waxay qaban karaan malahan way daawanaysaa marka almuhim waa ingiriis marka waxa lagu tilmaamaa maadaama dawladda ugu xididka dheer haddana aday Mareykanka aadka ingiriis ku wada hadlaan ugu dhow yihiin yani pressure noocaas inuu tusaayo yani mesela saas loo saarayo oo inkastoo Faransa way uu sameeyeen waa su'aal kale meesha taal say kula tahay arintaasi